caawa halkan waxaan isugu nimid xafladaan quruxda badan waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuridii 15aad ee dowlad goboleedka Puntland haddaan reer Edmonton nahay sanad guurooyinkii kale gobolada kale ama wadamada kale looga dabaaldegay kama aanan qayb gelin laakiin waxaan go'aansanay 15 guuro maadaama ay qaangaar tahay inaan qaangaar ka qayb galno si aan taariikhda hadda loogu qoran oo aan la oran habeen caawa barnaamijkeenu waa uu tiro badan yahay waxa uu ka kooban yahay taariikhda Puntland oo laga hadlayo intii ay soo jirtay waxay qabatay waxay tahay meesha Soomaaliya kaga taal dadku waa inay fahmaan Puntland ma aha dad gooni ah Puntland waa Soomaaliya Soomaaliya waa Puntland dad Soomaaliyeed baa dega Soomaaliya oo dhan baa wada degto haloo kala badnaado laakiin Puntland waa dad Soomaaliyeed oo Soomaaliya oo dhan wada degto dadku taa waa inay ogaadaan midda kale oo aan rabo inaan hadda halkan si clear ah uga sheego xafladan waa xaflad kaliya taageero ah oo aan ugu mahadcelinayno wanaagga ay qabteen nabadgelyada ay ka shaqeeyeen horumarkii ay gaareen dadka reer Puntland xaflad ku salaysan ama siyaasad in lagaga hadla aan u baahanahay ma jirto annagu qofka markuu halkan soo istaago oo podium ka hadlayo wuxuu ku hadlayo ma naqaan mana controli karno laakiin waxay ii sheegaynaa ujeedada xafladan inay tahay support taageerid u mahadcelin wanaagga ay sameeyeen dadka reer Puntland 23 sano oo dagaalkii ay ku jireen dagaalkii ahliga ah oo la waran isku baabinay ku jireen wanaagii nabadgelyada ay ka shaqeeyeen oo dad Soomaaliyeed oo meel walba ka yimid ay ku caanamaaleen oo ay nabad ku heleen shaqo ka heleen aniga idin la hadlay wixii Puntland ma arag in fact that's the fact ma arag Puntland meel ku taal laakiin waa ka shaqeynaya wanaaggeeda sababtoo tahay waa meel nabad ah meel walba Soomaali nabad ah in laga shaqeeyo way meeshii gobolkii nabad ah waa inaan annagoo dhan ka wada shaqeynaa sababtoo waa dhul Soomaaliyeed dadku waa inuu taa ogaadaa xafladan macnaheedu waxa weeyaan xaflad u mahadcelin bogaadin thank you very much you guys what you did you know that is the whole point xafladan ku adeegsanaya sidii caadadeenna dhaqanka ahayd annagu ma islaamin nahay muslimna waxaan u yeerayaa Sheekh Usmaan Barre oo sheekhay magaalada ah inuu aayadihii Quraanka halka inooga jeediyo Sheekh Barre fadlan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الحق حتى أتاه اليقين فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واهتدى بهديه واقترف أثرهم إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم marka waxaan rabaa dad badan inay hadlaan ayay doonayaan marka waxaan ku dadaalaynaa inaan qof walba aan soo koobno oo aan daqiiqado yar siino sababtoo tahay suugaanna way ku jirtaa oo gabayo iyo waxa ku jiro haddii ay yiraahdo cayaaraha iyo dhaqana caawa waana talantaale ragga kaliya dhaaxad kaliya qaadateen laakiin hadda dumarku waa in lagu daraa marka be fair waanaan ciyaarna inta haddaan kaga gudbo haddana waxaan u yeerayaa Cawil Faarax Diiriye oo ah main theme ama aan ujeedada xafladan ka hadli doono Cawil ku soo dhaw
بسم الله الرحمن الرحيم. دمانتي وين سلامية. إنك صدق ماشي اللي وصل هو سنوات على الميري هذا الكون بعد هذا أنت كم بدك. حفلة ديالنا عاوة وجدد هذا ولا شيء وسودوين يبغادين يدبال دقيق بنطلون عشان يتمن جوردي كسورك تبنطلون أنا ودي بالدقينا وياه waxaa layga codsaday inaan muddo kooban aan dadka halkan iskugu yimid oo mudayaasha iyo marwooyinka aan xoogaa ka sheego Puntland waa magaceeda waa la sheegay magaceeda waa la yaqaan laakiin Puntland ay maxaa tahay xagee uga taallaa Soomaaliya inaan xoogaa faahfaahin dadka siiyo baan soo istaagay magaca Puntland waa magac qadiimi ah weeye oo taariikho hore la bixiyay waxa inagu maanta aan bixin maaha deegaanku taariikh u leeyahay weeye afariga bilad bunti baa lagu yiraahaa waa dhulkii uduga halkaas oo ay ka timid masaaridii qadiimka ahayd oo waayii hore waxay ka guran jiray muxuu ahaa beeyaha iyo waxyaalaha uduga ay ka samaysan jireen marka magaca halkaas ugu baxay وبنطلون وبلدكي أدوغوي وكل وعليا نورث إيسترن صوماليا ووقوي بري دولة صوماليا بنطلون كتالا كابيتال كيدو ومقالة قروي قولك نوغال صوماليا وحي أوتونوموس أما اسمام كودا واضي bishii August kowdeedii 1998 Puntland waxaa ku xayndaaban dhinaca westiga ama dhinaca galbeed Somaliland maamulka la magac baxay baa ka jira dhinaca waqooyi Gulf of Aden baa ka jira Indian Ocean East waliya South East ama koonfur bari galguduud region oo Soomaaliya dhinaca south-ka ama koonfur bay ka jirtaa Ethiopia waa south west ama koonfur galbeed dadka ama population-ka Puntland ku dhaqan waxaa lagu qiyaasay 2006 3.9 million qof inuu ku nool yahay Puntland waa saddex meelood meel population-ka Soomaaliya sida estimation sheegay regionka iyo gobolka inta ka degan tahay waa saddex meelood meel Soomaaliya baaxadda ay leedahay dhulka ku fadhiyaa waa 213,000 kilomitir square Puntland waxay ka kooban tahay 9 region iyo 30 district أنا دقموي هدي عن دقموي كودا سيدا هذا أنت عنك ولا شيء إنك غشة شيء عين أو بوه لما قال ما راح تاي بري أو بوساس ما راح تاي كركار أو غرب ما راح تاي حيران أو نهر ما راح تاي ندو أو قاعية ما راح تاي نقال أو قروة ما راح تاي سنة وعرقاء ما راح تاي صور ولا سعار ما راح تاي قردفو أو علوة ما راح تاي عدي ميرا أيامها هذا كاتشوف شو عم تطري تاس هذا اللي كاتشي لكن وبنتلان سجال كابول بكتر سنتاي بنتلان دولة بنتلان واحد كوان تاي صدق سيستم برانش هو executive branch أما هو الفرنتا ومدحوينها يمدحوين كحجينك يقرأه وزير ده legislature branch هو speaker كا iyo house representative ka oo lixdan ka kooban iyo judicial system dalka waxa ka madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole madaxweyne ku-xigeenku waa Cabdisamed madaxweyne ku-xigeenku waa Cabdisamed Cali Shire
رئيس البرلمان أما سبيكركو وعبد الرشيد محمد حسي بنتلان waxaa soo maray waa dowladii afraad intii Puntland la aasaasay 15 sano oo ay jirto waxa ugu horeeyay Allah u naxariistee aasaasayashii ninkii ugu muhiimsanaa oo aasaasayasha Puntland kamid ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed wuxuu madaxweyne Puntland ka noqday bishii Juulaay 23keedii 1990 Cabdullaahi Yuusuf oo taariikh dheer Soomaaliya ku leh halkaas kuma ekaan federaalka cusub dowladda cusub oo Soomaaliya maanta jirana wuxuu ahaa aasaasaheedii wuxuu geeriyooday Cabdullaahi wuxuu madaxweyne ka ahaa dowladda ku-meelgaarka ahayd ee Soomaaliya bishii Oktoobar 10keedii 2004 ilaa 2008 Cabdullaahi Yuusuf wuxuu geeriyooday 23 March 2012 Allah u naxariisto waxaa madaxweyne soo maray oo ku-meel gaar ahaan Cabdullaahi Yuusuf federaalka u wareegay ku xigsaday Maxamed Cabdi Xaashi oo October 2004 ilaa January 2005 madaxweyne ka ahaa waxaa ka bedelay Cabdi Muuse Xirsi oo January 8 2005 ilaa January 8 2009 madaxweyne ka ahaa Puntland waxaa ku xiga madaxweynaha hadda jooga Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo Puntland madaxweyne ka noqday January 8 2009 ilaa hadda baan joogno waxaa Puntland soo maray saddex speaker oo house speaker oo Yuusuf Xaaji Saciid ugu horeeyay Axmed Cabdi Xaashi iyo Cabdi Rashiid Maxamed Xirsi oo hadda ka ah house speaker Puntland waxay calanka aad halkan ku arkaysaan la sameeyay oo ay Puntland ku dhawaaqday inuu yahay calanka rasmiga ah ee gobolka Puntland December 22keedii 2009 saddexda nooc oo calankan ka kooban yahay waxa uu koreeya calankii Soomaaliya oo qeexaya in Puntland baarti ka tahay qaranka Soomaaliya ka mid tahay waxa ku xiga cadaan oo sheegaya deganaansho iyo nabadgelyo waxa ku xiga kalarka aragtaan oo hoose oo cagaarka oo ah barwaaqo iyo horumar Puntland intii dalka Soomaaliya oo burburka iyo jahwareerka ku jiray kuma ay mashquulsaneen oo kaliya sidii loo raadin lahaa Soomaaliya oo la isku keeni lahaa oo ay geed dheer iyo geed gaaban u fuushay dhaqaale badan iyo waqti badan uga baxay dhiig ay ku daadisay in Soomaaliya dib loo helo laakiin waxay midna ku jiray gobolka ay degan tahay sidii horumar uga samayn lahayd inta karaankeeda Puntland markii dagaalka sokeeyay dhacay hal jaamacad kama jirin maanta 8 jaamacadood baa Puntland ka dhisan haddii jaamacadaha sheego Puntland State University Boosaaso College East Somalia University Muqdisho Branch oo University Maakhir University Nugaal University East African University intaas oo dhan Puntland bay maanta ka fakshan gareeyaan dagaalka soo ka dhacay Puntland dagaalka sokeeyay inta ka horeysay waxa ay meesha dadka la dhibahayo ama discipline-ka lagu xiro shaqaalaha halkan jooga way ogaayeen baan filayaa oo civil servant-ka Soomaaliya ahaan jiray qofkii discipline xun oo dowladda ka tirsan boosaasaa loo bedeli jiray lacag gurna ah oo dhibna waa la siin jiray maxaa yeelay meel dhib laa loo bedel maanta 15 sano ka bacdi waa loo daawasho tagaa Puntland si ay nabadgelyada iyo horumarka u samayso waxay hirgelisay 4 qaybood oo ciidamada dalka tirsan si amniga loo sugo maxaa yeelay horumar ma jiro lamana samayn karo horumar iyo waxa dad haaminaya haddaan security la helin
Puntland Security Forces oo ciidamada loo yaqaan qalabka sida Puntland Darwish Forces oo leeyahay ciidamada waxa weeye sida gaarka booliska u tababaran oo paratroopiska la yiraahdo Puntland Intelligence Forces oo ciidamada security-ga iyo Puntland Maritime Forces ciidamada badda waxaan u maleynayaa inaad ka daawateen meelahan aad ku arki doontaan economiga Puntland wuxuu ku base garaysan yahay xeebta aadka u dheer ee Puntland ku taal oo 1600 kilomitir square ah halkaasoo aad qani ugu ah natural resource-ga macdanta ka tirsan tahay iyo kalluumaysiga noocyadiisa kala duwan waxay kaloo qani ku yihiin waa livestock waxa weeye waxa la yiraahdaa beeyada warshadaha yaryar hadda aad looga hirgeliyay beero adan u malaynayno haddii layna tusaa idan marna rumaysanayn haddii intii kulliga diyaaradna lagu qaaday la geeyo meelo ka tirsan Puntland qof ibn aadam oo rumaysan lahaayo dagaal ka sokeeyay 15 beri 15 sano oo dalku burburay ka hor qof ogaa Puntland oo maanta tago moos iyo cambe iyo babay baa maanta ka baxaya oo aan meel kale looga keenin rag waxaa jooga wax weyn oo nicmaa ay u yihiin oo mar walba ay markay isqabsadaan ay ku kala baxaan marka waa arrin aan ugu tahnideen iyaga waxaa la yidhi dhulka deegaanku nin joogi jira wuxuu yidhi waa ka cimri dheeriyiin dadka kaleeto hawo fiican qabaan kuwayna way dhammaadeen oo deegaankaynu waa buliisa u malaynaya marka odayaal gaboobay la sheegayo caqliga ku dambeeyo iyo ummadda oo u hoggaansan iyada lafteeda waa mushkil ummadda Soomaaliyeed waa caasiyooday waxay u hoggaansami kartaa ma jirto nicmada aad haysatiin ilaahay ku mahadiya laakiin ogaada waa noo haydin keligii ma lihidin isuma haysto anugu inaan ahay qofka bannaanka meesha waxaan rumaysanahay arag kastoo Soomaaliya ka dhex bartay waxaa la yidhi beri baa nin baa wuxuu sheegay Maraykan ah markii ay soo galayeen jabhaduhu xamar ayaa Maraykan wuxuu ka warwariyay in Maxamed Siyaad hubkiisa oo ku laayay safiirka Maraykan u tagay markaas way u jeedinoo dadkan soo socdo cilmiga qoryaha isla ama soo galayso walba marka intuu qosay wuxuu yiri kolaha dhaqankeena aan aqaan dadkan soo qortay anagu tisfir bareeyaan bariga wada nool oo si anagu weydiina marka sax ku jirta waxay waayeen qoran midii waranka ay waa rajal hada lama yaqaan agsayta si laftiisu inuu sax u dhacay marka uu la yaabay hadalka jawaabta Soomaalidu waa ummadda kaliya oo dirta heshiisana waxaan naga dhamaanaya laakiin dhaqankaas waa si yaraanayo dhalinyaro oo waxa soo wada dhalinyaro oo dhaqankii ka tagtay marka nicmada ay haysatiin waa idan leenahay waa wada leenahay ogaadana nicmo kasta Soomaaliya nicmo ku jirta anigu hadda meesha aan joogo waa gobol federaal waxaan ka soo guurnay oo ka soo roob raacnay Ontario roob raacnay meesha roob ku daalaaday roob raacaas halkaa ku dhimaday haddayna dhihi lahaayeen Ontario hadkirta naqda waa iska naqalay laakiin maal way noo ogolaadeen inaan roob raacan nimaado weliba aan ka tirsanay Canada waa nicmad weyn oo aan ku shaqaysanay oo federaalku uu keenayo waa la isu guuri doonaa nicmadana hal qoramay lahaato waxa weeyaan Maxamed Cabdishakuur waa gudoomiyaha ururka dhalinyarada Puntland waa jiilka aan doonayn inay meesha la wareegaan annaga waa sii dhacaynaa maalinta ka dambeeyay hadda ayna inuu retire noqdo waa mid soo ahaa MC marka waa u baahanahay dad badan oo hawsha nagala wareega Masar Cabdishakuur Maxamed Cabdishakuur kusoo dhawow Thank you. عالم أفكار عن الجلد يلوق صح. marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan salaanta islaamka aynu isku salaamo taas oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib aniga oo ku hadlaya ururka dhalinyarada Puntland gobolka Alberta khaasatan magaalada Edmonton ayaa waxaan doonayaa inaan kaga faa'iideysto fursadan inaan u diro hambalyo iyo bogaadin shacabka reer Puntland meel kasta oo adduunka joogaan iyo dawladdeena
kumeelgaarka ee Puntland waxaan la xaqiri karin Puntland in ay taariikh aan caadi ahayn dhalisay 15 sano oo dadka shacabka reer Puntland ay soo mareen nabad kala dambeyn ee ay ku ilaaween civil war-kii dhacay 1991 oo runtii markastana sababta awgeed ay uga shaqeeyaan horumarka iyo horumarka dalka Soomaaliya waxaan leenahay Puntland ha noolaato aniga waa dhaweyta waxaan tagay Puntland gobollo badan ayaan tagay markii ugu dambeysay waxay ahayd 2005kii haddeer ayaan tagay waxaan kasoo moogahay 2 bilood oo kaliya runtii waxaan soo arkay big change waxaan soo arkay in runtii dalkii oo dhismay dadkii oo runtii markaa tagaysa xaggaan iyo markaa ka tagtay Canada oo Puntland tagtay wax weyn oo difference ma dareemaysid sababtoo ay tahay waa nabad number 1 number 2 dadku waxa weeye dad Puntlanders oo jecel mustaqbalka dalka weeyaan marka runtii aad ayaan u farxay only thing aan rabo inaan markasta meel kasta aan ka hadlo oo meel kasta oo dhalinyaro aan la joogo aan jeclahay inaan bogaadiyo waxa weeye 25 years ayaa Soomaaliya dagaal ku jiray 25 years dhibka Soomaaliya haystana even though Puntland ay nabad tahay still anaga waan effect gareynaya waayo Soomaaliya ka mid nahay Soomaa why dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu hurdaan dhibka Soomaaliya ka socda waxa weeye siyaasiyiin iyo meel kasta oo aragtid odayga ka hadlay odayga hogaankaya waxaan aaminsanahay 25 years haddii waddanku oo dagaal ku jiray haddii Soomaaliya oo dhib ka socday inay tahay this time in dhalinyarada loo daayo oo odayaashu retires ka noqdaan oo dhalinyarada hogaanka qabato dal iyo dawladba sidaas ay waxaan aaminsanahay Soomaaliya oo ku midoobi karno Soomaaliya ahaan waxaan doonayaa أنا ما يستعين إن عملتي خطوط بدن سوتشي ديو وعن سكهلا وحوي وحن دنيا نين عن صاحب هاي أو very one of my best friend أنا بقول هذا يمر لغات أوروكا من يريد بنتلان إن أكو سدوي كندا خاصة قبل كأمريكا وعلى ده جامعة قاعية هذي وبوكسر واي وفريان عانا وي 2 times champion he's a Puntlander hadda wuxuu joogaa Edmonton wuxuu joogaa bilyo hoqa marka waxaan rabaa inaan soo kiciyo dadkiisa baro feero badan ayuu ka dhigi doonaa Canada wacdar aan caadi ahayn nin aad u weyn ma ahan laakiin waa nin khatar ah welcome John السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلام دمانتين ولا ليال runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka xafladan iyo oo runtii aad iyo aad loo agaasimay waana wax sharaf ah inaan maanta halkan joogo ka soo qaybgalo xaflad Puntland lagu taageerayo anigoo Soomaaliya laakiin khaasatan waxaan ahay Puntland marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xafladan inaan ka soo qaybgalo midda kale waxay tahay aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan ku soo biiro community-ga Soomaaliyeed ee ku dhawaan gobolka Alberta gaar ahaan magaalada Edmonton waddanka waxaan joogaa bil waxaanan aad iyo aad u rajaynayaa inaan wada shaqeyno aniga waxaan ka imaaday Africa Eastern Central Africa Kenya Zambia waxaan 2 times waxaan raayay Eastern Central Africa Championship professional boxing هذا ماشان باي ماذا متى يسوعته تريننج باي يسوعته صوت كامكو بانكارا متى جيم ليرا سناب فيتنس you all welcome my man كرتان وارت كرتان وحنا رجينا إن شاء الله نوفمبر سنة كان وحليقو قلقالنا هنا نعذو مونتريال إن كسو فيرتمو لكن وحنا سكود يدونا إن الفيركي وكوبادو كندا كدع دونا إنه كدع مقالة إدمنتون marka miisaanka runtii aad miisaan weyn maan miisaanka boxing waxa jira dadku ma fahansana waa 12 miisaan oo kala duwan nin kasta miisaan buu haystaa aniga miisaanka aad iyo aad ugu rajaynahay waxa waaye miisaan la yiraahdo bantamweight ama featherweight
waa 126 pounds markii pounds la yiraahdo waa 56 kg waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa waxaan bilaabay boxing anigoo jira 12 sano waxaan ku bilaabay magaalada Nairobi waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa inaan guul ka keeno runtii waana arki doontaan ilaahay idinkiisa bilaha soo socda iyo waqtiga hadda meeshan baan joogaa aad iyo aadna waxaan u faraxsanahay inaan filan karo intaan oo Soomaaliya maalinta firtamay inay imaato iyo in ka badan ma filaynin intaan oo qadada inay meesha joogaan waxaan rabaa cadaankaasaan boos uga ciriirsan lahaay oo u soo jiidan lahaay inaan jiidaalo saan soo jiidan lahaa dadkaas kula ajnabiga inaan ku dadaalo laakiin hadda inaan ku faraxsanahay intaan oo Soomaaliya inaan filan karo markaan firtamay in ka badan ba waxaan manaya aniga meeshan waan ciyaar runtii waa haddaan aniga I'm not going to let you guys down inshallah I'm going to do my best haddaan hubinaan runtii marka istaagay meeshan mana leeyahay waxaan aad ku sheegay inaan meeshan joogo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo gelitaanka community-ga Soomaaliyeed ee Alberta garaan thank you very much aad buu baahsan waxa kaloo jooga ninka Puntland u dhigay waxaan u baahdaa It's a Puntlander and also it's a basketball player. Solo. ma meel joogto waaniyo yiri maxaa u fiirtamaysaa waxa marka ninkii wuxuu yiri nin kale wuxuu yiraahdaa wiilka maxaa gartaa feer duciyaaraa oo intuu soo baxay meeshan waan salaamayaa salaanta islaamka aan salaamayaa waxay la tahay in badan inaan aragnin Saudi waa la yaabtay marka laakiin waxaan ahay kullaankii ka yimid baan aan ka taageerjooda kii u gaabnaan oo soo kacay waxaa u gaayahay هذا كبر حويا بدأ نتكلم عن قضية المان مدة الصومالية مدة حب الله خاصة هذا مصراعي من يستوي شوغان اللي يرى حب الله ده حب الصلاة وأن سلام يا حنا تعالى هاي وحنا كبل هذا اليوم مستقبل الصومالية كيف نبض على هذا اليوم هنا نحلو كرتين إن شاء الله كريم. كل أن دوام بقى إذا أنا واحد أصوب أنا عود مش عم أصوب هاي. لكن استبدأ ما حكي فلان يعني بدأ. وحياة راسي كانت فلانية. لكن بعد أنا أرتين وان مري. أقول كني طمنكي وحنا كم مري. سنة بريد وان مري. بدل بعد ذلك فيني أنا عمل حاس. يمكن بدنا نقول أنا مش مري. مركا aad baan ugu faraxsanahay inaan bilaa waxba soo qayb qaatay sanad guuradeedii maanta halkan inala joogo waana ina salaamayaa dhammaan ummadda reer Puntland meel kasta joogto salaanta islaamka ku salaamaya Puntland dadaalkay dhisteen dowladnimadooda danta shacabka doorkay u hagi dulucsamantooda danta shacabka doorkay u hagi dulucsamantooda isku duuban antay dumeen dagashaweeyaane afarta daliilkii wigliyo diriirkii cawlede dhinnahyay sidii aardul jiray danaanankaygidhe diradliyo hubdaaran dooriyo danab sidiisiidhe dudun ruuxdu kala hurdada deexan kari waaye dugmuxuu yidhaahdaa dareendidiya weeyaane adadda waxayalla hadduu daadku kugu daaco dohda layska moosa intaad durugsan hawshada duruucdiyo ujeeddada anoo
lahayni dam jadiid madaago reer buntland durxulkay garaane dam jadiid madaago reer buntland durxulkay garaane dam lama siin dooraha durugsan weeyaane ku dalxiis buntland baan lahaa daymada u roone diyaaradu raacbaan lahaa waanan dayn karine inaan dago garowan jeclaa dagalsan weeyaane inaan dago garowan jeclaa dagalsan weeyaane danta galkacyoodiyo galdagab waan dalbaanayaane danta galkacyoodiyo galdagab waan dalbaanayaane inaan mudug ku daahan jeclaa waan ku daantiraane waddadii nugal baan lahaa diradtada u qaade degmad carareedidada sooraye dafaha sanaagiyo haddaan soolu daadagiye hadaaftiyo dusheedaan fardaha daaji leeyahaye dahabka galgaala daagsan baan sooday leeyahaye dooxadii darooriyo qandara waanan dayn karine dooxadii darooriyo qandara dalagsan weeyaane ku dalxay caluulan lahaa doorka maantaahe diyadeenna qoftan lahaa doobigow cugae dekadii bosaasaan lahaa soo dul jaagaclaye dekadii bosaasaan lahaa soo dul jaagaclaye raas casayr ku daabaan lahaa durugsigaagiye dayibow allaahayow ka yeel dagal barwaaqooba oo dinta eebbiyo dacwada lagu darasayo dakariyo colaadiyo loo dayackaye